وتهي داوديال كان نقل سعطان وتلفزيون كاستيان وذا كيمانية magaalooyinka Minneapolis iyo Saint Paul maanta waxaan joognaa telefishinka cusub iyo sanadkii cusbaa ee sanadka 2025 awaale ku soo dhaw cabso taaraad baad u maadsan tahay sanad wacan wanaagsan waan dhowahay dadweynaha ku xidhan telefishinka STN aad iyo aad baan u salaamaya meel kasta aad joogteen waxaan leeyahay sanadkiisa ilaahay hay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo ruuxaantiina waxaan ballan qaadaynaa in barnaamijyo badan oo taxana ah aan halkan idinka soo gudbin doono aanan ka cudur daaranayno barnaamijyadeedii taxanaha ahaa ee hakaday sida barnaamijkii wax badan iftiimini jiray ee caanbaxay ee la yidhaahdo beenta wadaadada oo aanu ku falanqayno beenta iyo khuraafaadka ay akhriyaan wadaadada wahaabiyada ee sacuudigu uu fankarayn jiray عوالو مسألة هاي سنة كعصب وحن كبدلينا وحبدا أو وحن كدرينا حتى السياسة ده أو لقى بين شيء دتكي هذا الله ده هراء ولا دبي يكون لما مركز لما كانت كهليان أسكهري ماريان إن عم تتارو إن سياسيين هذه الشير يجا ولا حساب تما ولا دبقلا وحيابها شيئان إن هذه الشير warbaahinta Soomaalida oo dhan ba ku daba jirta laakiin waxa jira niman dilaaliin oo diinta ka ganacsada oo magacii diinta suurad xumeeyay oo aanan iyaga lagu daba jirin taas waxay keenaysaa waxaana sababtay iyaga oo Soomaalidu ay magaca diinta aad u ixtiraamayeen dadkanina iyagoo taa ka faa'iideysanaya ay ummadda Soomaalida ay tashwiish ku furaan iyagoo danahooga khaaska ku fushanaya warbaahintuna ma dhex gasho ama ma daba gasho sababta aan markaan u baarnayna ma jiraan warbaahin si fiican wax u baadha isla markaana ma jiraan wariyaal ama saxaafiyiin arrimaha diinta iyagu si aad ugu xeel dheer maadaama anagu aan ku takhasusnay aqoon badan oo lana dhinaca diinta ma isleedahay waxyaabo badan oo dadka Soomaalida ah looga faa'iideysto ayaynu iftiiminaynaa aad iyo aad muddadii dhowrka bilood ee barnaamijkaasi uu hakadka ku jiray fariimo fara badan ayaa na soo gaarayay run ahaantii dad badan ay wax u iftiimisay oo ay meel ay labaad oo ay dadkii ku kaliftay in ay baaraan marka aynu soo bandhigno dadkii waxayna weli ayna maqal waxay dadkii ku kalifaysaa in ay wax baaraan oo xaqiiqdii ay eegaan marka anagu aan markii ninka wadaadkee danaystihii ee dilaalka wax sheego in anaguna soo bandhigno in xaqiiqdu siday tahay qofkii si uu wax u ogaado waxa ku kalifaysaa in uu baaritaan badan sameeyo halka isagana qalad ka imaanaya Cawaalow waxa weeye marka ay doonayaan inay arrin aan soo bandhignay ay beenayaan arrintii naftigeedii kama hadlaan mana keenaan wax daliil ah iyo wax cadeynaa iyo meel ay cuskanayaan inaga ayay in ku mashquulayaan arrinta maxaad ka leedahay in horta xeerka saxaafadda marka waxa ku jiray marka qof la dhaliilo wuxuu xaq u leeyahay TV-gii ama idaacaddii laga dhaliilay ama wixii uu sheegay lagu qalday xaq buu leeyahay in TV-ga uu yimaado TV-gaasi ay siiyaan fursad uu wixii uu ku kala cadeeyo marka waxaan leenahay wax qof kasto wadaadada diinta beenta ka sheegayeen soo qaadano ma shakhsi uma hayno laakiin way ku furan tahay in aad noo timaado ama aad nala soo xiriidho oo beentii aad sheegtay aad tiraahdo aad saxdo way ku furan tahay markaan barnaamij soo gudbino oo nin dilaal oo beenaala oo diinta ku gabanaya aanu sheegno isagii way u furan tahay hadduu Minnesota joogo nala soo xiriiri karaa halkan studio uu iman karaa haddii kale uu meel kale joogana dabcan emailada iyo telefoonada WhatsApp-kaba shaashadaha ayaan ku soo qori doonaa way u cadahay marka waxa anagu aan soo gudbino waxa baaritaan oo ku kalsoonahay una cidna radin kartaa ayna jirin sidaa daraadeed way u furan tahay nin kasto oo qolooyinka wahabiyada ama akhwaan ha ahaado adu dilaalinta diinta ka ganacsada ee dadka waalaya waa u furan tahay in uu noo yimaado uu barnaamijka aan sheegno
haddaynu usoo noqono dhinacii sanadka 2025 sanad cusub weeye ballanqaado tv-gu aan ballan qaadayno iyo taariikhdii sanadkii 24 dhammaaday waxaa u dhexeeyey ma jiraan wax inoo qorshaysan oo aad leedahay maanta taasana ku daraynaa adigu waad ogta laakiin waxaan rabnaa inaan dadweynaha u iftiimino barnaamijyada soo socda waxaa ka mida barnaamij isagu ka hadlaya wadankan Mareykanka waa wadanka ugu dilka badan barnaamijka waxaa la yiraahdaa dhagarqabe dilalkii horta gobolkan aynu ku bilaabayna waxa la wixii dilal kiisas muhiim ah ee gobolkan ka dhacay sida ay u xaliyeen iyo sida ay wax u baaro wadankan waa wadan hub la wada haysto dilkuna uu dhaco laakiin had iyo jeer waxa ka daba taga dad daacada oo dambi baarayaal xirfadooda aad u sareyso marka kiisaskii Minnesota ka dhacay ee caanka ah baan soo gudbin doonaa kadibna Mareykanka u gudbin doonaa taas waxay iftiimin doontaa sida ay waajibaadkooda u gudanayaan ee dadka dambi baarayaashii markaad aragto wadamadeeni qofka qof dila waxa la soo xirayaa in aabihii walaalkii hooyadii waxa soo dhan laakiin halkan ma taalo qofka qof dilay ama dambiga galay waa shakhsi sida uu diinta iyo quraankuba qabo qofkaas unbay iyagu raadsanayaan waxa kale oo ay Soomaalida kaga duwan yihiin Soomaalida xitaa halka ku nooli qofka wax dilay qaraabadiisu way qarisaa laakiin dadka Mareykanka ee cadaankii ma qariyaan oo booliiska ayay xaq ama garab siiyaan si ay dambiilo waxaad arkaysaa waalidkii qaraabadii oo dambiilihii muxuu ahaa soo dhiibaya ama macluumaad ku saabsan sheegaya marka taasi ku kala duwan barnaamijka dhacda koob waa uu bixi doonaa barnaamijka oo aan barnaamijyadeennii caadiga ahaa oo mid la oran jiray dhacda koob isaguna waa soo bixi doonaa mid kale oo iminka teknolojiyadu waa aad bay u horumartay marka waxaan AI-ga la yiraahdo waa dadka wareeriyay barnaamij la yiraahdo isla aniga iyo mataankayga oo AI aan wada gudbin doono kaasina waa soo bixi doonaa marka waxaan waa niga xaqabtiri doonaa barnaamijyada waxaa jirtay oo awaalow aan rabno inaan ku darno oo barnaamijkan inuu ka mid noqdo barnaamijyada aan dadka shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan u soo gudbino dad badan ayaa ka sheekeeya dhibaatooyin iyo khataro badan oo ka jira dalka gobolka Minnesota inaysan ahayn meel aad u khatar badan ay tahay xataa meel badan oo dadka Soomaalida ah horumar ka gaareen oo wax badan ka sameeyeen oo siyaasiyiin noqdeen oo CEO iyo kamaniyo xukumaan qaarna business oo weyn ay sameeyeen kuwa naftigooda iyaga maxaa kale ah waxaa jiri doona waxaan isagana aan awoodda saari doonaa barnaamijyo sida ay Soomaalidu ay gobolkani ula fangaleen waxyaabaha horumarka iyo wanaagyada ay sameeyeen dabcan horumarka iyo mustaqbalka sida ay wax noqon doonaan iyo halka ay ku socdaan caqabadaha ay bulshada Soomaalidu la kulanto waxyaabahaas si cilmiyeysan ayaan iyagana u sheegi doonaa intaas baan kaga baxay cabsataan barnaamijkeeni ayaan soo koobaynaa soo gabagabaynaynaa sida aad naga barateenba hadda wixii ka dambeeya saanu idin sheegnayba barnaamijyada cawaar idin sheegay anaa idin sheegay barnaamijyadaas oo ka bedelanaan doona barnaamijyadii hore aan soo gudbin jirnay qaarna dadkana u faa'iideynaya waxyaabo badan ayaan ku soo gabagabaynaynaa si sanadka 2025 uu u noqdo sanad fiican oo ilaahay uu noo gaarsiiyo sanad kale caafimaad iyo cimri dheer cawaalow dadka daawanaya waxaan iyagana u rajaynaynaa sidaas oo kaleeto in ilaahayna kulan siiyo sanadkaana sanad khayr nooga dhigo aad iyo aad baad mahadsantahay cabsataan